magaalada colaadda qurqurinaysa ee laascaanood waxay maanta oo dhan hoy u noqotay madaafiic ay ku duqeynayeen ciidanka militariga Somaliland kadib markii ay aaga ka samaysteen gudaha laascaanood ciidanka deegaanka iyo xoogaga diidan Somaliland sidaad ogtihiin maalintii labaad ayuu dagaal ka socday laascaanood kaasi oo aan maanta xog dhammaystiran laga helin annagoo raadinay xog rasmi ah oo ku saabsan dagaalkii maanta ka dhacay laascaanood waxaan baaritaan ku sameynay dhimashada iyo dhaawacyada maanta kala gaaray ciidanka Somaliland iyo ciidamada ka soo horjeeda ee la baxay xoreynta gobolka Sool dhinaca Somaliland maanta galinkii hore waxay adeegsadeen hubka culus iyadoo lagu duqeynayay aagag ay ku tuhmayeen ciidanka diidan Somaliland laakiinse galinkii dambe ee maanta ayay Somaliland bedeshay ciidankeedii dagaalamayay shalay iyo maanta ayadoo keentay hogaamiyayaal dagaal oo cusub iyo ciidan cusub iyo saanad military oo dheeraad ah kadib markii ay dagaalka guul ka keeni waayeen ciidankii Somaliland ee ilaa iyo shalay ku jiray dagaalka Somaliland ayaa duulaanka laascaanood u qorshaysay inuusan la dhaafin 7 maalin oo ay ku soo afjaraan xoogaga ka dagaalamaya laascaanood dhinaca ciidanka deegaanka ee laascaanood waxay maanta heleen gurmad xoog leh oo uga yimi dhinaca Puntland sidaan ku ogaanay baaritaankeena ciidan u dhashay beesha dhulbahante oo ka tirsanaa ciidanka BSF ee Puntland ayaa dagaalka ka qayb qaatay maanta sidoo kale ciidanka amar qaata madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa ku biiray dagaalkii maanta ka dhacay laascaanood sidoo kale waxa aan ilaa iyo hadda la xaqiijin karin dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay laascaanood Somaliland ilaa iyo hadda ma aysan sheegin khasaaraha ka gaaray dagaaladii ka dhacay magaalada laascaanood dhinaca ciidanka deegaanka ee laascaanoodna waxaa la soo warinayaa inuu khasaare badan ka gaaray dagaaladii ka dhacay labadii maalin ee la soo dhaafay laascaanood walow ay jiraan warar kala duwan oo sheegaya in magaalada Burco la geeyay dhaawacyo badan oo ka tirsan ciidanka Somaliland halka ciidanka u dagaalamaya qadiyada SSC dhaawacyo badan oo kamid ah loo xaqiijiyay in la gaarsiiyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ilaa iyo hadda ma jiro cid si rasmi ah u cadeysay dhaawacyada iyo dhimashada kala gaaray labada dhinac ilaa iyo hadda ma jiro xal looga baaqsan karo dagaal oo muuqda waxaana socda abaabul iyo hub aruursi ka socda labada dhinac ee ku dagaalamaya laascaanood dhinaca dawladda Soomaaliya oo maanta ka hadashay dagaalka ka socday maalintii labaad laascaanood ayaa ku baaqday in la ixtiraamo rabitaanka dadka deegaanka oo aan xal lagu gaari karin qori caaradii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in qadiyada laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u baahan in lagu xalliyo wada hadal ayadoo ay laascaanood furo u noqon doonto damaca lagu raadinayo midnimada Soomaaliya sidoo kale war qoraal ah oo warbaahinta u akhriyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Fiqi ayaa lagu sheegay inay dawladda Soomaaliya soo dhaweynayso go'aankii istimada gobolka Sool soo saareen sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay dawladdiisu gacan ka geysan doonto wada hadal walba oo lagu dhameynayo xiisadda laascaanood dhinaca xukuumadda Somaliland ayaa dhowr qoraal oo ay soo saartay ku sheegtay in ciidankeeda la soo weeraray ayadoo sheegtay inay soo weerareen kooxo argagixiso ah iyo ciidanka Puntland Somaliland waxay sheegtay inay diyaar u tahay wada hadalka ayadoo dhinaca kalena sheegtay in gobolka Sool lagu soo duulay oo ay tahay inay ciidanku soo celiyaan gacan ku haynta magaalada laascaanood sida muuqata dagaalka ka socda laascaanood waa mid sii xoogaysanaya ayadoo laga cabsi qabo inuu dagaalku daba dheeraado oo uu reebo khasaare ka xoog badan inta hadda la og yahay